بسم الله الرحمن الرحيم waxay la tahay saaka arrintii aynu inta badan ka doodnay oo miisaankeeda lahayd oo ku saabsanayd doodii ka dhacday baarlamaanka Ingiriiska markii dhan walba aynu ka rognay wasiirro badan ka doodeen siyaalo badan loo dhigay waxaynu ku soo urureynaa qodobada soo socda qaranka Soomaaliland wuxuu u mahadnaqayaa baarlamaanka dalka Ingiriiska UK isaga oo uga mahad celinaya doodii ku saabsanayd qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Somaliland ee ay guriga baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirtay ajandaha baarlamaanka markii ugu horeysay si waafi ah oo run ah oo xaqiiqo ah xogaan ay uga warrameen caalamkana ay u muujiyeen dadka UK-na ay u muujiyeen waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida weyn u taageeray qadiyadda Somaliland ee sida xogaalnimada uga warramay soona jeediyey inay waajib muqadas ku tahay caalamkaba in la aqoonsado Somaliland sidoo kale waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii golaha keenay dooda aqoonsiga Somaliland iyo xildhibaankii hogaaminayay arrintaa ee soo abaabulay Honorable Gavin Williamson qaran ahaan Somaliland waxay u mahadnaqaysaa dhammaan jaaliyadaha Somaliland ee qurba jooga ama meel ay joogaan iyo dal kasta ay joogaanba waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa jaaliyadda reer UK oo muujiyay dadaal dheeraada oo arrintaas si dheeraada xil iskaga saaray oo uga soo shaqeeyey aad iyo aad buu shacbiga Somaliland iyo xukuumadduba idinku mahadnaqaya waxaa loo mahadnaqayaa waynu qaran ahaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo Somaliland u geysatay taageero siyaasadeed oo qadiyaddooda taageeraysa tu dhaqaale iyo tu aqooneedba dowladda Somaliland iyo shacbigeedu waxay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax bannaanida iyo aqoonsiga helidiisa qarankooda waddo kasta ay u marayaan iyo culays kasta ay ku kacayso golaha xukuumaddu wuxuu go'aamiyey in shacbiga Somaliland dibadba ay sameeyaan arji ama codsi ay u dirayaan hay-adaha caalamka ay kow ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa gaar ahaan golaheeda ammaanka golaha African Unionka ama Africa ay ku kulanto AU-da loo yaqaano Arab League jamciyadda carabta ka dhaxaysa iyo ururada kale ee caalamiga ee dalka ka taliya in 1 milyan oo reer Somaliland ay saxooda soo dhamaystiraan deetana apiilka aqoonsiga Somaliland loo gudbiyay hay'adaha caalamiga ay kow ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa African Union ama midowga Africa iyo Arab League iyo hay'adaha kale ee aan looga maarmin arrintaa wax ka tar ku leh waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacbiga Somaliland ee dalka joogay ee sida weyn dareenkooda ula qaybsaday baarlamaankii doodii ka socotay iyo jaaliyadii reer Somaliland ee reer England reer UK ee hawshaa ka soo qayb galay golo wuxuu hambaliyanayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hawshaa golo wuxuu ku boorinayaa shacbiga Somaliland dhammaantii inuu u guntado hawl kasta ay ku qaadanayso waqti kasta ay ku qaadanayso culays kasta ay keenayso inay u midoobaan oo u guntadaan in ay hubiyaan oo ay xaqiijiyaan qadiyadda madax bannaanida Somaliland qodobka noogu dambeeya waxa weeye waxaan uga digaynaa dowladda Muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan oo ay ku qaadaan baarlamaanka xubnihii baarlamaanka hawshaa galay iyo golayaasha caalamka aba inay ka dagaal galaan inay meel marto qadiyadda Somaliland waxaan u sheegaynaa dowladda Muqdisho dadka waxaa ka talinaya waxaasi waxay sii kordhayaan waa nacayb
kala fogaansho iyo colaad dheeraato oo aad ku dhex beeraysaan soomaalida gudaheeda iyo cadaawad fogaato oo ubadkeena soo socda ay u sii taagnaato inaanay caqlid ahayn Soomaalilandna ma aha mid ay cid ku qasbi karto madax banaanadeeda iyo go'aankeeda iyo masiirkeeda horay ugu naf iyo maalba haddana waa u diyaar aad iyo aad baa mahadsantihiin.